السلام عليكم داودة. waxaan rabaa inaan maanta kula wadaago caalimkii muslimka ah ee Xasan bin Haytham. haddii aad tahay booqashadii kuugu horeysay ee channelkan fadlan subscribe dheh kambalelkana riix si aysan ku dhaafin barnaamijyada kale. waxa uu ku dhashay dalka Ciraaq gaar ahaan magaalada Basra 965 miilaadiyada laakiin waxa uu inta badan noloshiisa ku soo qaatay magaalada Qaahira ee dalka Masar isagoo ay reer galbeedku u yaqaaneen magaca Hazim. waxaana bartay fiqiga islaamka ka hor inta uusan danayn falsafada iyo saynis yahanada xisaabta ee Greek oo dhashay gaar ahaan Galileo Archimedes. waxaa lagu tiriyaa Ibn Haytham inuu yahay aabaha cilmiga aragtida waxaana sabab u ah kitaabkiisa Al-Manadir kaasoo uu dejiyay intuu ku sugnaa magaalada Qaahira. waxa uu ku sugay buugga aragtida gelidda ilayska ee isha waxa uuna u hormariyay sida ay hadda tahay kadib markay ahayd aragti ay taageereen saynis yahanada sida Galileo iyo Ptolemyos taasoo leh aragtida ayaa sababta ilayska ka soo baxa isha. waxa uuna taageeray Ibn Haytham aragtidiisii weliba isagoo leh falaar ilays ka soo baxa isha suurtagal ma ahan inay gaaraan xidigaha fogfog ilbiriqsiga ishaad kala furto. dhigeeda waxa uu hormariyay aragtida saxda ah taasoo ku sharxay hawsha isha inay tahay noqod falaar ilays ay isha ugu yimaado meel waliba waxa uu cadeeyay Ibn Haytham in ilays ay gudbo qadad toos ah. waxa uu sameeyay tijaabo fara badan sida muraayadaha iyo bikacisooyinka ee arrimaha ku saabsan noqod iyo qalacsan ilays. sidoo kale waxa uu bixiyay tilmaam iyo falanqeyn ku saabsan pinhole camera ee ah asaaska kamerada oona ahaa qofkii ugu horeeyay ee soo bandhiga humaag ama sawir dibadda kaasoo dul saaran shaashad gudaha isagoo isticmaalaya pinhole camera. wadada cilmi ee Ibn Haytham isticmaalay waxay u ekeed wadada cilmi baaris ee aan hadda isticmaalno taasoo ah indhayn ogaansho dejin fikrado tijaabo amalawaala falanqeyn natiijooyin baaritaan fasirida xogta sameyn gunaanad iyo kama dambeys ah iyo in la soo bandhigo. waxa uu ku geeriyooday Ibn Haytham Qaahira ee dalka Masar isagoo weliba jira 76 sano. fikradihii uu keenay Ibn Haytham 1000 sano ka hor si weyn ay adduunka u isticmaalaan oo aad ay ugu mahadiyeen.